kulanti waxna wanaagsan daawadayaal ahaantiiba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo la yeelanay abwaan dahagaas oo ah abwaanka hobolada caan baxday ee beriyihii u dambeeyay fagaaraha qabsatay waa kooxda Dayaxbaan muddooyinkii u dambeeyay wuxuu safar ku joogay qaybo ka mid ah gobolada bariga Soomaaliland sida gobolada Togdheer iyo waliba gobolka Saraar abwaanku maanta wuxuu anbabaxayaa safar kale oo ku sii jeedo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ugu horreyn abwaanku soo dhaw waraysigan su'aasha kuwadan ku weydiina waxa weeye muddooyinkii u dambeeyay waxaad ku hawladeen barnaamij wacyigelin oo qabyaalada dhalinyarada laga wacyigelinayo waxaad ku qabateen gobolada bariga Soomaaliland gobolka Saraar iyo gobolka Togdheer ma jirtaa gobollo kale oo aad barnaamijka ku sii baahinaysan oo aad geynaysan ari gaabo baa ku xigta barbariyada lafteeda waan doonaynaa aan ku qabanno laakiin muhiimadii waan burco horta way noo qabsantay si wacan barnaamij wacan baanu ka qabanay riwaayad wanaagsan baanu ka duubnay oo qabyaalada oo isdhexgalka bulshada ka hadlaysa oo dagaalkii ceelifin ka dhacay ee dadka walaalaha ehelka isku leeynayeen ka hadlaysa ayaan qabanay si wacan budan ugu dhacay alxamdulillah awaan aad baad mahadsantahay awaan waxa jira gobolka Togdheer marka la soo qaado qaybta fanka qof walba maskaxdiisa waxba ku soo dhacaysa sababtoo ah gobolka Togdheer muddo 10 sano laguma qaban wax shooga mar qura ayaad idinku dabarkaas jabiseen oo dhalinyaro badan oo xiisa qabtay inay marun helaan dad ay meel muraayad ka arkeen hortooda yimaadaan oo idinku iskoorka jabiseen sida idinku suura gashay ma jirta wax caqabado aad culimada gobolka kala kulanteen bal qaab nooceeya ayaad idinku wajahdaan arinta anagu horta culimada waa soo casuunay iyagaan soo casuun waayo waxay galin baan weyn heesahan wadina qabyaalada ka hadlaya laakiin fanka iyo suugaantu haddaan wax saal isku mulaaqayn iyo diinta waqafta waa kala gaar masaajidada diinta oo laga hadlo culimadu shaqooyin kale leeyihiin oo yaala anagu wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta buufanka hoos taga warqad baanu ka sidanay nooma iman karaan sabab ay noogu yimaadaan may jirin samad garan waana qabaa in dowladdu aad wax uga qabato in dowladdu wax uga qabato fanka iyo culimada in la kala sooco waayo wixii wanaagsan lagama hadlo wixii xunna dadku waa ka wada mideysay wadaad iyo nuwinba wadaadadu khalad bay iyagu leeyihiin fanku bada mar khalad baa ka dhaca waa in wixii si wacan laakiin la yahay burco fanka waa laga joojinayaa heesi waa khalad anagu markaa dad weydiisay sidoo noogu qabsoomay barnaamijku waxaa ka koowa bara saabko warqadii hirgeliyay aanu sideen ciidan noo keenay oo hirgeliyay inkastoo qalqalad baa arag anagu nagu horta wadaad noo yimaadaan arag damayrkuna waa ka koow oo holkuna si abwan showgiinu runtii saameyn weyn buu lahaa baraha bulshadana siyaabo kala duwan baa laga faaloonay dhalinyarada reer Burco bar way taageereen in showyada lagu qabto magaalada Burco qaar culimada la saftan oo ka soo horjeestan waxay yiraahdeen uma baahnin marka la eego xagga gobol ahaanta way kaga duwaneed gobolada kale dalka inaan lagu qaban wax fana ma rajaynaysan in mustaqbal ahaan saa ku sii socoto mise waxaad rajaynaysan in mar laba sideed ku sii noqoto culimada gacanta ku dhig macmiil bay noqonaysaa oo dhiganaa waa qabanaynaa markastana maarka waan weydiisanaa intaan hool xora helayno waxa jira badan oo dalkan u dhashay waxa kamid ah jaakaraacin hodelkiisa wax rababa ka haray samad garan waa dadka waa sportska iyo fanku soo taga aad buu la shaqeeyaa kooxdayada jaakaraacin marka hoolal badan baa jira oo aan halkan ka wadno oo aan ku qabanayno jimco kasta dadku inay sida Hargeysa noqoto oo maqaaxiyo dadku qabyaalada halkii Facebook qabyaalada kaga mashquulaan kabankooda iyo wacyigelin iyo riwaayado waayo dadka talentiga leh ilaahay ku abuuray dalkan waxa uu dhashay Burco haddana waxay ka qoslayaan Hargeysa maxay ku dhashay qoslin waay culimada u taga Soomaa waanu qabanaynaa dheeli waanu wadaynaa culimada dalka dawlad baa ka talisa culimada naga hor iman kartaa ma jirto culimada aan isleena way hadli karaan ma jirto waxayba ku hadli karaanba anigu waxaan maarko dadka ka maqlay way nooma iman Burco waxay noqonaysaa sida Hargeysa samad garan dhalinyarta waa la wacyi gelinaya waa la shaqeynaya samad garan muhiimadu weyn meel lagu soo wada jeesto waan kartaabaan waxa jira abwaan kooxdin kulli tusaale fiican bay noqotay gobolka Togdheer oo ka xidhna fanka iyo fanku furto muddooyin ku dambeeyay hotelkan ka oo kale intii ka dambeysay waxa yimi kooxo kale oo ka mid ah kooxaha qaranka sida kooxda xidiga geeska oo kale iyaguna habeen dhaweyta ka tumay wadada cusub ee jeexdeen markii aad aragteen
moraal intee laga idin gelisay koox ahaantiina xaggee si aad hiigsanaysaan meel wacan xidigaha geeska kooxdii naga weyneyd xaanka geyga ka ahayd aad baan u salaamay cabdihani baa yimi hooyo cabdiraxmaan baa timi waxaa yimi fanaaniintii ranka ahaa iyagana aad iyo aad baan hambalayna waxaanu leenahay dalka innagaa le burciya hargeysana waa isku mid ciddii naga hortimaado aynu iska celinno deerka aynu iska jebinno mar kasta kaalaya daynu iska celinno muddooyinkii u dambeeyay abwan waxaad kulan la qaadatay dhalinyarada gobolka togdheer oo qabyaalada ka wacyigelinaysay sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka togdheer oo iyaguna si weyn idinku soo dhoweeyey koox ahaantiina gobolka maxaad ka wada hadasheen horta waxaan salaamayaa ugu horeyn madaxda gobolka oo ugu horeeyo barasaabku oo markii warqadii naloo soo qoray wacyigelinta ahayd isaguna askartii iyo howlgalkii iyo wax walba noqotay waxaan se aad iyo aad aanan usoo koobi karin ammaantiisa wax mar quraan kaga hadli karahayn maayirka oo markaanu hool allaale dowladdu malaha hool ay ku qabato shir hool allaale hool aan ku qabano markaanu hodhaladana diideen oo fanka waa ogtiina burco way xirxiran imikood madoonu hodhaal kaah intii aanu nima ka bacdi wax furfuray haddana maayirka oo khayriyaddana siiyey oo nala habeeyey oo nala shaqeeyey oo mar kastana garab taagnaa baan aad iyo aad u hambaliyeen burco waxay leedahay maayir qaaliya ninkii doonaa iska hadlay hadday aad ula shaqeeyaan shacabkiisu oo u huuliyo maca xuquuqda ka maqan u dooda ninkaa aad baan u salaamay waxaan kaloo salaamaya xildhibaan bidhi oo isna aa ogtihiin dhalinyarta aad iyo aad ula shaqeeya oo imaantigaan halkan iman ninkii ugu horreeyo la soo xidhiirinay nagala soo ambabixi hargeysa iyo wax walba nagala soo qayb galay aad baan u salaamaya xildhibaanka dhammaan dhalinyartii iyo ciddii nala shaqeysay togdher media center iyada lama ilaawo karo ugu dambeyntii waxaad u ambabaxaysaa safar muddo badan baa dadkaaga la joogtay dadku jecel ku soo dhoweeyeen waqtina aad la qaadatay ugu dambeyntii maxaad leedahay bulshada gobolka togdheer bulshada gobolka togdheer waxaan leenahay wixii xun la diiday wixii wanaagsan la soo dhoweeyey horta dhammaan wariyeyaasha oo dhan waan salaamaya ilaa sawir qaade ilaa cameraman togdheer media center si gaara baan u salaamayaa oo ilaa maantaan nimila meelkaan teganay gacantiis waxaa noogu haysay oo wax walba noo fududeynaysa tamidmidhi ma soo koobi karo adiga agantirika ayaan le oo bararashanka oo dhan noo haysta aad baan isagana u salaamaya guddoomiyaha maxamed mooto waan salaamaya dama soo koobi karayo way nala wada shaqeeya burco oo dhanna waan salaamaya waxaan leeyahay bay bay burco soo noqod wanaagsan